waa maxay waxa uu shaydaan ku dhaartay inuu bani aadamka ka yeelayo balse maanta lagu arkay caalamka 1400 oo sano ka hor ayuu nooga digay Alle subxaanahu wa ta'aala arintani si aan ugu amban oo aynan ugu kufin jidgooyooyinka shaydaanka. muuqaalkan aad arkaysaan waa nin u dhashay dalweynaha Brazil gaar ahaan caasimadda Rio de Janeiro. markiisii hore sidaan ayuu ahaa ka hor inta uusan bedelin muuqaalkiisa. ninkani waxa lagu magacaabi jiray Anthony Lefredo. waqtigiisii ugu badnaa waxa uu ku qaatay waddanka Faransiiska oo uu ku noolaa. waxa uu ahaa nin xoogsata ah oo mushahar ku filan ka hela shaqadiisa maalinlaha ah. si kastaba ha ahaatee waxa uu ku fikiray in uu dadka ka duwanaado isla markaana uu bedelo midabkiisa, jirkiisa iyo muuqaalkiisa oo dhan si uu isugu ekaysiiyo waxaanan la garanayn. waxa uu jaray qaar ka mid ah farihiisa. waxa uu gooyay oo meeshaba uu ka saaray labadiisa dhagood. si la mid ah waxa uu jaray duleelada sanka, carabka iyo suniyaha. waxaa intaasi dheer in uu jeexjeexay jirkiisa, meelaha qaarna uu barariyay isagoo ujeedadiisu ay tahay in uu bedelo muuqaalkiisa bani aadamka ilaa ugu dambeyn uu sidan ugu ekaado. qaliino aad u tiro badan oo ay kaga baxday lacag xad dhaaf ah iyo xanuuno joogto ah kadib waxa uu u arkaa inuu gaaray hadafkiisii oo ahaa in uu ka duwanaado bani aadamka. ninkani waxa hadda lagu naanaysaa Black Alien, balse caadiyan waxa uu u muuqdaa sida shaydaanka oo kale. waxa uu caan ka noqday guud ahaan dunida. barihiisa gaarka ah waxa ku xiran malaayiin qofood oo aad ula cajabay muuqaalkiisa la yaab kale. waxa la arkayay isaga oo la sawiran ama la jooga niman aad u soo dhaweeya muuqaal ahaan oo aad moodo inay isku daydaan marka aad fiiriso sida ay u duldulooliyeen jirkooda. taasi waxay caddaynaysaa inay jiraan dadyow kale oo sidan ah isla markaana ku cayaaray jirkooda balse aanan muuqan. laakiin arrinta cajiibku waxay tahay in aayaadka Alle ay nooga digeen mar hore waxa maanta dhacaya, gaar ahaan ficilka uu sameeyay ninkan oo lagu naanayso Black Alien iyo sida uu jirkiisa u dooriyay. shaydaanku waxa uu kumanaan sano ka hor sheegay in uu dhumin doono bani aadamka oo uu baadiyeen doono, in ay raaci doonaan isaga in badan oo ka mid ah dadka, isla markaana uu ku amri doono inay isqalqalaan oo ay isdooriyaan. waxa uu sidoo kale yiri isaga oo Alle subxaanahu wa ta'aala la hadlaya, waxaan ku amri doonaa dadka inay iska bedelaan sida aad u abuurtay. waa sida ay leedahay aayadda 119 ee suuratu Nisaa. waxaa cajiib ah sida uu Alle subxaanahu wa ta'aala nooga digay arrinkani 1400 oo sano ka hor. balse maanta waxa muuqanaya oo aan arki karnaa in uu bani aadamku sameeyay wixiina looga digay. sida ninkan iyo dadka la midka ah ee tirtiray abuurkii Alle isla markaana bedelay muuqoodii quruxda badnaa ee uu Alle siiyay. waxaa sidoo kale loo qaadan karaa qof kasta ee iska diiday amaan ku kalsoonaan abuurkii Alle ee quruxda badnaa ee uu u sameeyay.